maalin wanaagsan ku soo dhawaada muuqaal cusub maanta waxaan joogaa beer ka mid ah beeraha Afgooye waxaan rabaa inaan wax idin ka tuso nolosha beeraha sidoodaba waxay ka mid yihiin waxyaabaha dalka uu ku tiirsan yahay wax soo saarka dalka haddii noqon lahayd cunto haddii noqon dhaqaale ahaanba waxaan rabaa inaan idin tuso beer ka mid ah beeraha ku yaala Afgooye beerta magaceedu waxa la dhahaa balbalay waxaan isla arki rabnaa marka beer waxa ay tahay sida ay u taalo markii igu horeyso beeraha imaanayo muuqaalkii dugso gaar waxaan ka codsanayaa channelka YouTube subscribe ina saartaan kana mid noqotaan asxaabtayda YouTube wax soo saarka Soomaaliya waxay gaarsiisan yihiin 65% dhaqaalaha asaasiga ee wadanka waxayna ka mid tahay beeraha waxa ugu nugulsan markii la dhaho dhaqaale sameyn waxay ka mid yihiin waxyaabaha dalka uu ku tiirsan yahay wax soo saarka dalka haddii noqon lahayd cunto haddii noqon dhaqaale ahaanba beeraha waa isha koowaad ee wax soo saarka dalka Soomaaliya sida caadiga beeraha marka waa labo midhaha iyo khudaarta abuurka markii la abuurayana waxaad ku abuuri kartaa gacan ahaan waa loo abuuri karaa waxaan loo abuuri karaa in cagaf loo isticmaalo riyada makiin marka waxaan rabnaa in isla aragno dadka deegaankana aan ka wareysanaynaa beeraha iyo waxtarka ay u leeyihiin dadka Soomaaliyeed marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dadku si sax ma u xamaashaan beeraha sida caadiga loo yaqaan waqtiga hore loo beeri jiray hadda ma loo beertaa dadku wax kale ma isticmaalaan hadda Afgooye markii la joogo iyo deegaankan ma jiro qof xool leh ma ayaga dadka deegaanka degan waa dad beerley ah dadku beerleydana markas way qasbiin beertooda inay ku shaqeeyaan marka qofkan haddii roob uu doo haduusan diin haddii webiga uu buuxo haduusan buuxinba ku qasban yahay in beerta dhex joogo meel kale waa malaha marka beer soo ilaashana beer soo diyaarsanaa haddii webiga uu soo buuxsan webiga ku waraabsanaa kii webiga aan lahayn oo roobka ay tahay roobka markuu soo doo roobkaasoo ku waraabsanaa haddii roobka la waayana haddaba 3 fasal roob ma diin dadku iska joogaan wixii hore u tacbadan isku cunayaan iyo wixii caawinaadka weeli kara qof webiga ka war webiga wuxuu ka mid yahay waxyaabaha biyaha ugu badan laga helay ka mid tahay beeraha oo ismaaciil khudaarta lagu soo saaro iyo geedaha u jeedinba beertan aan joogno laakiin sanadkan ugu dambeeyay waa sanadka ugu xun aan weligiis soo marin ay ka mid tahay webiga xilligan oo kale weligiis ma soo gurin burtaan weligiis biyo laga mooynin laakiin wuxuu maqnaa 7 bilood soo maqan wuu yimid hal bilood joogay haddana waa goray marka hadda beeri wax lagu waraabinaa malaan dhirtii waa la beertay mid ku yimid waa la waraabiyay beertii soo baxay dhirtii soo baxday hadda malahan wax lagu waraabiyo oo uu koriyo oo malahan webiga waa qaleel qofkas ceel uma qodna awood ma laha inuu ceel qoto roobkiina ma diin marka waa saameynta ugu badan ay tahay maanta hadda kaysato saameynta kaliya hadda beeraha webiga kamid tahay taariikh ahaan waxaa la sheegaa beeraha ama beerashada beeraha Soomaaliya ilaa 3,000 oo qarni ka hor ay soo bilaabmeen maxaa ka jirta wajita because of dadka deegaanka degan markas baa la soo gaaray Soomaalidana laba shay qaarna xoolo dhaqan jireen qaarna beer dhaqan jireen dadka wabiyada iyo meelahan ku nool waa beerley Soomaali dad waa beerley waa dadka deegaan degan dadka xooladeena waxa waa ayagan waxay fiirinayaan markas roob meesha ugu doo iyo iska guri jireen dadka marka weligood tacban jireen waagi marka oo la tacban jiray kunaas marka hor wax badan iska bedelin tacab because of hadda dunga hormaray dunka la mid ah markaas laakiin dunga hormaray way koriyeen laakiin annaga wali waxaan taaganahay booski hal shay aan gudub maxay tahay in xoolihii beerta aan ku farjin anaka iska dayno oo cagaf isticmaalo makiina isticmaalo aan beerta ku falnaa taaganahay laakiin mashiinadii kale isticmaalaya iyo qalabkii kale hadda dunka soo kordhay in hal qof kaliya 10 hektar kaliya inuu tacabo oo kale waxaan annaga inay soo gaarin Yusuf wuxuu ka mid yahay macallimiinta bara beerashada wuxuu ka mid yahay macallimiinta dhiga jaamacadaha Muqdisho qaar kamid ah waxaan ka wareysanay beeraha iyo sida loo beerto sida ay tahay aad u maasantahay kuma soo goynis yani dhagaxna ma ku tuuraysaa haye dhagax alayk soo goyna hadda wax ulim ku soo goyn waa soo go'aa kan idib arka yarkaas aadan waaye meeshaanu qumba soo goostay dhagax la ku tuursan kadib uu ku soo go'ay amaano dhagax alayk tuur waa soo go'aa oo ku soo go'aa hadda meeqa xabaartana ku soo goostay markii laba xabna meesha ku fikir lahayd inaad suuqa wax u aado soo gadato aadan beertay wax kale yihiin waxaanu nasaa gacantiisa ku heesanaa qumbo mar soo goosanaa mar liino soo goosanaa waxa anaga naga maqan wallahi
aadan hookaayo hadda hal xaba kale u soo dhacay maanta dhan dhagax wuxuu ku tuuranayaa 2 xaba si kaligiis oo ku filan tahay maxaa ka qurux badan beertan inaad soo dhex gasho mar liin aa cunto mar camba aa cunto marba qumbe subxaanallah nimcada qaar ee naga maqantan camal waaye weli waxaan ku jirnaa barashadii beeraha ilaa hadda ani waxaan soo ogaaday galeyda markii galeyda waa la shafaa horta hore laakiin khudaarta kale cambaha iyo waxaas iyo waa la guraa marka hadda waxaan rabnaa inaan gudaha u galno inaan sameeyno beerihii inaan si loo falo aan gacanta ku aragno oo qalabkii lagu fali lahaa aan soo qaadano marka intaasna nala arkin insha Allah ما شاء الله كسر هذا حاجة عندك هاي مرداف قم بحاله يصير جمرة لوا نوع هذا حيرة مركوب جوا حلو يقانا مرداف مركوب بس هذا حلو يقانا قم بحاله يقانا وش هم حلا مضعير الليل هاي مضعنا وحربنا سوق بتاع عنبها فين تهري يو ماشي اسكي ميرها عربينا سوق قطو كسو غوي مثلا خلاص حبانا سوق جد كانوا حلا لها موس كمرك قاب وحو بخا او hal gacan oo soo baxa gacanta waxa ku hareeraysan farfar farti waxay wadataa 12 xabo moos ah marka mooska sidaas u soo baxa mooskan hadda waa la jaray yani uu bixi waaye marka mooska hadii uu bixi waaye meeshiisa loogu tagaa waxa laga yaabaa inuu dhulka ku baabao dhulka markii uu ku baaba'ana dhulkooba nafaqo u yahay haduu wax kale si loogu abuuro way u fududaanaysaa سمينتا أما قادست السبرد والشقة الأولى والشقة الأولى حروا هذينا سميو أما سبرد عن قد خادي جري مقالوين كنا تبنا سيد السيل عقل بورة ما كسوق هذه يعني كي وذاك كذا نيسان حنكو أحسنية وخال قرر